بسم الله الرحمن الرحيم جيري بعض العلم كويتيو قرحيدي مقالة قال كعيا كدعي قرحي وهريو قال كعيا كديارسكان هدوها قفص قرحية هدوها قارن وتو اسقرحية بل إيجا ورن قرحي وهريو قال ديارسكان قرحي محدين قعمي سيو ديارسكان وحلو دياري قاري صار مقبسة وحن كسوط من برحلة يا كبحسان لا بقول سديت واقفت كارجاس العقد رئيس اللي يعقوب القادر مر واقفت وأمريكا نصر يا واقفت أنا وصادر يا كوسوك حي قاري وحاسوك حي حمدان واقفت حمدان يا قاري وصادر وحقول شيء ونمر واقفت قرحي كسوك يعني حقين بدي أري قرحاس قرحي وحقول يعني ديرش بيا العالم واقفت باورت وتشرف يا لودي لما كباري قرح لي سودي يعني وحلو لي نين مصراح ninka muusadaha xagee jooga ninka muusadaha waxa keenay cabdiraad ibn Umar keenay oo qadar bicilmo iyo ku wareejiyay wixii asaygu isoo anigu soo wareejiyay ninka isqarxin doona oo gaariga muxuu gacmi isku qarxin doona adaa lagu soo wareejiyay xagee geysay waxaan geeyay meesha amal agtada hotel baa marka hotel baan geeyay hotelkaas habeenii maalintii ka bacdi hotelka magaciisa meesha hotel nasiya geysay markii qarax gaariga la soo diyaariyay waa soo kaxaysay soo kaxeeyay gaariga qarax baan ku soo wareejinay oo ameerika ku soo wareejiyay kadib waxaan keenay meesha amal agtada ninkaas isqarxinayo ceelbuur laga keenay oo muruusadaha nin wuxuu diin gacmi yaqaan ma ahayn yaa tusiyay markaan wuxuu diin gacmi tusiyay in leeyahay maxamed deeq uu tusiyay qaraxaasna saas uu ku dhacay ninkaas lacag bay qalay baasisay ninkaas waxaan siinaa $485 qaraxaasi waa qaraxii jannada muxidiin gacmi qaraxii ku xiga keebu ahaa qaraxii ku xiga wuxuu ahaa kii xiradayax qaraxii xiradayax qaraxiisa iga warasay u diyaarisay xiradayax qaraxiisa amiirka lahaa wuxuu ka dalbaday nin isaga ka sareeya oo ceelbuur jooga gaariga loo sugiyo weyn gaariga markii mudafacay yimid laba nin baa isla socday gaariga labadaa nin midna gaari kale u diyaarinayo nooha ahaa oo ameerika diyaariyay baa lagu wareejiyey markii labada qarax lagu wareejiyey anaa lagu soo wareejiyey anigana waxaan ku wareejiyey xiradayax baan keenay qaabkaa u dhigtay iyo iga sheekeey sidana lagu soo wareejiyey nimankii gawaaridaas isku qarxiyey intee nin bay ahaayeen xaggee magaalada laga dejiyey laba nin bay ahaayeen nin noohada lagu wareejiyey aniga gadaal iska qarxin doona noohada gadaal iska qarxin doonto oo magaaladan gaalkacyo lagu diyaariyey laakiin labada nin ceelbuur bay gaariga weyn kala yimaadeen ameerika saa dalbaday xaggee dejisay ninkii gaariga weynaa waxaan dejiyey hotel cagab gaariga xaggee baad dhigteen gaariga waxaa la dhigay dowladda hoose hotel amarka dowladda hoose gaariga lagu dhigay oo lagu wareejiyey soo ma lahayn dowladda hoose haddaad dhigtay ninkii baa ka kaxaysay goormay ahayd xilli noocee galab subaxdii lagu soo shaqay gaarigaasi galabta meeshuu yaalla habeenkii oo dhan meeshuu yaalla subaxu qaxayo qaxa waxaa la dhigay gaari meel socday baadiid socdo maraya markaa gaariga noohadaana gaariga noohada waa la soo diyaariyey isagana waxaa la dhigay meesha baabuurta ay ka baxaan meelaha albooqadiisa aado astaanka baabuurta culmud oo yahay booqad aada buu gaarigaasi yaalla oo goormaa la dhigay waxaa la dhigay sida galabta isaga galabnimadii waa la sii dhigay habeenkii waa yaalla yaa ilaalinayay waxaa ilaalinayay gaariga noohada wata ilaalinay laakiin amiirku wuxuu ii sheegay laba nin isaga oo dasada qaas ahaa in u fiiriyay labadaa nin magacyadooda kujis iyo maxamed deeq see loo qarxiyey baabuurta marka ma rimuud baa lagu qarxiyey gaariga weyn kan kale markuu isqarxinayo see isu qarxiyey labada ninba oo dadka kaasmarka lagu qarxiyay ay ku yaaceen wuu iska dhigay gaari degdeg ah gurmadka degdeg ah usoo socda kuwa iskati baa fahamtay xabadii ku dhintay midkii dhinaca saarnaba kale tana isqarxiyey labadii nin oo ceelbuur gaarigan weyn oo isqarxinaya ka soo raacday labadaba noohaday ku wareegeen saasayna isku qarxiyeen qaraxii kale oo ku xigay nimankaasi lacag lama siin miya ceelbuur bay kala yimaadeen lacagtooda iyo waxooda qaraxii ku xigayna gaada yare soo dhaaftay qaraxii gaada yare see u dhacay asaga saaxiib la ahaa baabuurta kala jiray waa gartay
ninkaas anigu tashkiiliyo la heshiiyey ameerika ku wareejiyey ninkaas adigaa tashkiiliyey muddo intee leeg baa tashkiilinaysay laba isbuuc bay kugu qaadatay maxaa ku tiri markaa tashkiilinaysay waxaan ka dhadhicinayo ninkaas qaxiyo waa kaa yeelay lacag meeqa leeg baa siisay $400 iyo waxaan siiyey $820 $820 baad siisay ameerika ku wareejiyey ameerika jaakada qaraxa ay isku diidaan jireen gurigiisa loo keenay sida jaakada qaraxa loogu xiray sida soo qabtay halkaa iigu celi amiirka baa isla jaakadii qaraxa soo diyaariyey jaakada qaraxa soo diyaariyey amiirku waa kee waa adiguna ninkii isqarxin lahaa ogaadiya isku qarxin lahaa baa soo tashkiilisa soo diyaarisa jaakadii xaggee la geeyey jaakadii guriga liibaan jareer baa la geeyey haye kadib maxaad samaysay halkaas ninkii loogu geeyey ninkii uu jaakadii usoo labisay libaan yaa u geeyey aan u geeyey liibaan jareer ninkii isqarxin yaa u geeyey si uu jaakada ugu soo xiro muxuu sameeyey ninkii jaakada usoo xiray uu soo diyaariyey meeshii uu ninkii ugu yimid inuu ninkii jaakada saasaa waxaa lagu dilay xisaabiyihii gobolka mudug qaraxii ku xigeenna qarxigu waa jiir cabdullaahi yuusuf qaraxiisa sidee ahaa qaraxiisa wuxuu ahaa waa nin jareer oo ka yimid halka ay qanigu nin jareer oo halka ay qanigu ka yimid haye waxaa dalbaday inuu umul baa dalbaday meel qaxootiga kusoo degay qaxootiyada guri ka mida ku degay kusoo degay waa gartay markuu kusoo degay inuu umul asaga wada kulmeen kabacdi anaa la isku wareejiyey waa gartay markaan wareysay qaraxa qaraxa sun qaraxa wata laakiin qaraxa wuxuu ii sheegay inuu asaga diyaariyey suunka qaraxa ah farsamadiisa iyo gacantiisa umul baa diyaariyey ninkii adiga laakiin waa lagu keenay isku qarxin lahaa saraakiisha xaggee lagugu keenay dukaankaaga intee maalmood buu kula joogay maalinta kuwaad aragnay maalabaadkeed waa ballanay isbuuc bay kuu soo noqonayay waa is waraysateen aakhir shaqadii baa u diray aakhir shaqadii baa u diray indhambeyntii axmed deeq baa lahaa nimankala soo kormeeray kabacdi hooshii fushidaas ninkaas jareer buu ahaa qanigur buu ka yimid saraakiishaan see buu u aqoonsado saraakiishan leenta waxaa lahaa axmed deeq baa lahaa maxamed deeq baa tuseeyey meesha joogaan oo geensay in iligaan lacag meeqa leeg baa siisay ninkaa $380 yaa kugu dhiibay okay qaraxa ku xigayna gudoomiyaha gobolka qaraxiisi bal qaraxaas iga waran qaraxaas wuxuu ahaa gaarin waxaan ku soo gaday baraxle yaa soo gaday anaa soo gaday adigaa soo gaday okay lacagtu waxay dhiibay ameerika meeqaa ka bixisay gaarigaas $850 baad siisay konton baad kala hadhay waa gartay waa gartay waa gartay ninka gaariga kaxayn doona isqarxinaya xaggee laga keenay ceelbuur waa murursade magaciisa ma haysaa adiga soo laguma keenin ninkaas meeqa maalmood buu ninkaas gudoomiyaha gobolka isku qarxiyay adiga kula jooga aniga maalin kula jooga waa hotel aan geeyey hotelkee baad geysay hotel siyaasiyiin maqaayadka horeysan buu ka cunteeyey sidaati doorkii kale waa soo wareejiyay doorkii kale oo gaariga diyaarad ninkii soo kaxaysay ninkaas ceelbuur buu ka yimid ma yaqaano gudoomiyaha gobolka iyo gaariga uu ku socdo ma yaqaano axmed deeq baa usoo wakiishay ninkii umar maxamed deeq baa qaraxa ku hagayay gudoomiyaha gudoomiyaha joogay ninkan waxaa lagu diyaariyey geedka dheer oo ka sokeeyo gobolka geed gobolka ka soo jeedo shahnacaantiisa shahnacaantiisa buu gaarigan taagnaa waa meesha ugu gaartay maxamed deeq meel ka horeysa ku hagayay gaariga ninka gudoomiyaha saaran buu yaqaanay waa gartay marka asagaa isku hagayay marka lahaa gaariga marka soo baxo anaa soo sayaalanaya dhaqdhaqa qaraxi saasuu ku dhacay ninkii gaarigaa isku qarxiyo murursade meeqaad lacag siisay